qofkii raba caqligiisa inuu saliim noqdo, wanaagsanaado, fikirka wanaagsanaado, aasaas waxa u ah inuu fikiro ama inuu ka shidaal qaato waxyiga oo ah allihii abuuray. caqliga culammada qaar waxay leeyihiin waa hibatullah, ilaahay baa noo hibeeyey, yajibu istithmaaruhu, waa in la maalgashtaa, investment in lagu sameeyo caqliga. investmentgiisa waa aqoon, ka fahanku ma qalbiga iyo caqliga uu ku sugan yahay mise maskaxda ku sugan yahay. culummadu waa isku qabteen. qur-aanka mar kastuu hadlaayo wuxuu ka hadlaa qalbiga inuu yahay meesha wax laga fahmo. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان كان وحنو كهل دونا أساس كفكر كوناكسن يا عقل كوناكسن. نكر أن يرضى يا قبل أن يرضى يقود أهم بن آدم كفكر عقل جيسة الروح ديسة انت بإنه فهمه وبعيه. maxaa ka dhaxeeyo caqliga iyo ruuxda? maxaa ka dhaxeeya caqliga iyo waxyiga? ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walaqad karamnaa bani aadam. bani aadamka ilaahay waa karaameeyey. muxuu ku karaameeyey? caqlibu ku karaameeyey. caqliga waxa weeye waa caqli wax kala saara. annaga iyo xoolaha farqiga noo dhaxeeya waxa weeye ilaahay caqli buuna siiyey. caqligaana waxaa quudinaya aqoonta quudisa, cilmiga ayaa quudiya. sida ninka dhalinyarada uu jiimka u aado, uu jirka u dhiso, gabadhuna jirkeeda uga fikirto, ayaa loo baahan yahay caqligana inaan ka fikirno. ruuxdeeda maxaa quudiya? caqligeyga maxaa quudiya? su'aal baa la isku haystaa. caqliga maskaxdu ku jiraa mise waa qalbiga? lahum quluubun laa yafqahuuna biha ayuu leeyahay alle subxaana wa tacaala. waxay leeyihiin qalbiyo aysan wax ku fahmaynin. marka fahanku ma qalbiga iyo caqliga uu ku sugan yahay mise maskaxda ku sugan yahay? culummadu waa isku qabteen. qur-aanka mar kastuu hadlaayo wuxuu ka hadlaa qalbiga